السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن داوده markale ku soo dhawow cashar kale oo xiiso badan oo ku saabsan warbaahinta hadii maanta ay kugu horeyso boggan fadlan subscribe dheh aladkana furo wada la wadaagi kartaa saaxiibada ku soo dhawow casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay xadgudubyada warbaahinta qaarkood ay u geystaan dadka eedeysanayaasha ah xeerka saxaafadda ama anshaxa saxaafadda waxa qodobadiisa aasaaska ah kamid ah inaan qofka eedeysanaha ah dambiile lagu sheegi karin ilaa inta maxkamad ay xukumayso qofku waxa uu dambiile noqdaa marka maxkamad ay dambi ku xukunto ayaa loogu yeeri karaa qofkaas waa dambiile haddaba qof waxaan aragnaa imika warbaahinta aan aad ugu soo batay waliba dad la soo qabtay oo la keenay warbaahinta horteeda dabeetana sawir laga qaado warbaahinta horteedana mararka qaar lagu wareysto oo la yiraahdo dambigaas maxaad ku gashay iyo xagee laga soo qabtay iyo lagu yiraahdo warbaahinta horteeda waxay xadgudub ku tahay anshaxii saxaafadda iyo qawaaniintii caalamiga ahayd ee xuquuqda qofka uu lahaa xeerarka dalka u yaala ee ilaaliya qofka sharaftiisa waxay kaloo saameyn ku yeelanaysaa dacwadii maxkamadda oo qofkan waxa laga yaabaa in wajigiisan ama sumcadiisan la dilay ee warbaahinta ka soo baxay inayba ka dhib badato xukunkii maxkamadda lagu fulin lahaa waxa kaloo iyadana suurtagal ah in xukunkan loo cuskado hadalladan uu yiri inta uusan xorta ahayn maxaa yeelay qofkan marka askartii soo qabatay ay hortaagan tahay xor ma aha kumana hadli karo fikrad sax ah sharciga xeerka saxaafadduna ma ogola in lagu xadgudbo cid ama garab la siiyo cid ku xadgudbaysa taas bedelkeeda waxa asal u ah yani anshaxa saxaafadda in cadaaladda qofka laga shaqeeyo tusaale aan soo qaadano magaalada muqdisho waxaan daawanaa wararka ugu badan ee ka baxa TV-yada habeenada qaar baa ciidamadu intay tagaan guryaha galaan dabeetana dad bay soo guraan ragga waliba guryaha jooga labada habeenimo loo daadanaya taasoo sharci darro ah in qofka gurigiisa isagoo hurda loo daato yani marka la eegayo dastuurka iyo xeerarka dalka u yaala dabeedna qofkii banaanka la keenaya iyagoo badan dadka xaafadda deganaayo dhan wariyaal baa loo yeerayaa layrar baa lagu ifinaya dabeedna duuba la leeyahay waa dadkaas waxa ku yani dambiilayaal ma aha dadkaas cid dambiilaa kuma jirto yani xadgudub baa loo geystay warbaahintana waxay ka qayb qaadatay xadgudubkaas tan kale qofkan cidda ay ahayd inuu u hadasho waa warbaahinta oo saxaafaddu ay farayso inay u noqdaan kuwa aan codka lahayn inay cod u noqdaan haddii meesha ay codka uga noqon lahaayeen ay cadaalad darradii laga yaabo qodobadii cadaalad darrada ahaa inay garab siiyaan iyadana waa khalad waxaad kaloo maskaxda ku haysaa wariye qofkan eedeysanaha ah waxaa laga yaabaa dembigan inuusan gelin waxaa laga yaabaa in qofkan dembiga uu u galay sabab yani ku khasabtay waxan oo loo qaateen ah uu u sameeyay dembigan waxaa taa kala saari karta marka maxkamad la geeyo oo uu qareen iyo qof difaacayo sharci uu helo marka kadib la xukumo ayaa la heli karaa laakiin qof hadda la soo qabtay wixii la doonaha lagu soo qabto eedii la doonaha lagu soo qabto in warbaahinta laga soo daayo sharciga saxaafaddana ma ogola xeerarka caalamiga ee xuquuqda aadanuhuna ma ogola wayna ka soo horjeedaa dastuurka dalka u yaala iyo xeerarka dalka u yaala marka adigu qayb ha ka noqon inaad cadaalad darro yani qof lagu haysto inaad dadkii cadaalad darrada ku hayay aad garab siiso qof lagu xadgudbaya sharaftiisana xadgudubkii yani garab ha siin oo qayb ha ka noqon laakiin dhinaca kale qofkan cadaalad sidii uu heli lahaa raadi oo ka qayb qaado sidii loo heli lahaa xukun cadaalad ah oo si sax ah qofkan yani loo baaray sababta iyo waxan uu u sameeyay iyo xitaa caafimaad qabkiisa maskaxeed loo ogaaday aad iyo aad baad u mahadsantihiin fadlan haddii aad ku cusub tahay maanta subscribe dheh aladkana furo comment bixi wixii fikrada share garee dadkana la wadaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidaad u daawatay tan iyo kulanti dambana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo